ساكن مدحوينا قلت لي ماشي ودقنا وحنقصوا همبلي إنا إلى هذا همبليو بعد ما أنا نتجين على مشاركي وسمريب أنا نتجين مرلبات وحنقول له همبليو مدحويني قال مذوق وحنو ملاينا أدانا قلتمين مدحويني لحد إنه يا مدحوين أحمد الله ونحرستهم محمد ورسامي كيميكو أيا بيس وها founder of قلب مذوق مقعاس نك أساس اللي وها وحيسوس سعد الرك بدنا مدح كسر نوضي مدحويني لحد يسوي هاي وحنو رجينا إن مدحويني سوماليا مستقبل كيلو نقدونه سيدا هاد بقول شقينا هاد بقول سعود ساكي وحن كيري سيد لجو ملينا ما هذا النقول يعني قف كسور ربو في السنة كلام وحيلم التاي كلمدو وحيلم التاي بنتلان ومدحويني لحد إذن عليه قصتو إلا بعد أصلا لسنتين نلعب كلا إن يسنقون كلمدو نبى هذا كذا واجي قبل ما يشان كيسيس هذا برامبركا كلمدو كل ما هذا كلي يعني يقولون اللي ميل سؤال لذا إنه نخطوه أو قربان قولي سوني وسوق لي كور ما أعرف كلمدو كلي يعني قفاد قنقولي على سوق اللي تري مختلف مركب فأقول جدا لما قفاد كلمدو جاي سوق لي مركب بدأ عين قولي على قفاد ما فرنا فكرنا سوق لنا والله سنتردد كل ساعة يا ليه تاني وحنا مدحويني dalkan taariikh uu leeyahay taariikhdiisa qof aan aqoonin ma dhisi karo khalaadkii dalkan ka dhacay qof aan aqoonin ma xallin karo waxaan rabaa inaan kaala dardaarmo dowladdaada iyo maskaxda aad maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kula shaqaynayso ee dadka kula shaqaynaya inay noqdaan dad dalkan aqoon u leh siyaasad iyo dhib ku soo maray dad aqoon u leh dadka dhalinyarada waa loo baahan yahay wax qabtaan xafiisyada ka shaqeeyaan laakiin dalkan wuxuu soo maray waa inay og yihiin haddaan la helin wixii taariikhdii shalay waxay ahayd nin sida karo ayaa loo baahan yahay oo rugcadda ah annaga hadda waxaan dhalinyaro meel walba soo dhalinyaro si aan ugu dhihin dhalinyaro tahay nin walba garow rag 20 jir soo garoweyna arkaysa si aan loo dhihin dhalinyaro tahay marka dhalinyarada wax looma diidana laakiin taariikhda dalkan uu leeyahay waa inaad taqaaniin tan kale aan aniga rabo inaan ka dardaarmo waxaa waaye madaxweyne galmudug baa la isugu tegey soomaali dastuurkan gudoomiyuu senator cabdigaydiin uu ka yahay la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka aniga waxaan ka ahay la taliyaha siyaasadda arrimaha dastuurka ee wasaaradda dastuurka hadda waan ka wada shaqaynaa dastuurka gudoomiyaha ka hadli doonaa dhow intiisa badan waa dhammaaday wuxuu u fadhiyaa keliya la gaaro madaxweyne heshiis siyaasadeed laga gaaro heshiiska siyaasadeed dadka gaari lahaa waxaa waaye soomaalina waxay leedahay madaxdii go-aanka ka gaari lahayd baa yaa halkaan fadhida dastuurkaas oo arrimaha la isku haysto oo ah qodobka 53 oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah federaalka ka ah waxyaabaha la isku haysto waxaa ka mid ah caasimadda waxaa ka mid ah xeeraadka sida loo qaybsanayo awoodda sida loo qaybsanayo siyaasadda sida loo qaybsanayo dowladda dhexe iyo state maxay kala leeyihiin dastuurka hadda noo yaalla waa kumeelgaar maamul goboleed kastana wuxuu leeyahay dastuur kumeelgaar mar haddii kii federaalku kumeelgaar yahay kii maamul goboleedkeenu kumeelgaar yahay marka wax kasta waa in laga wada hadlaa marka si loo wanaajin lahaa ma si loo diidi lahaa waa sidii loo wanaajin lahaa marka waxaan qabaa go-aanka siyaasadda ee soomaaliya ay gaarayso ayaa ka xoog badan dastuurka noo yaalla madaxweynaha senatarka waxaan jeclahay inay dhegaystaan dastuurka dalka hadda u yaallo waxaa ka xoog badan go-aanka siyaasadeed ee soomaaliya ay gaarayso meel walba oo dunida arrimo siyaasadeed lagu xalliyo waxaa ka xoog badan go-aanka siyaasadeed hadda kenya aragteen intaasaan dhisneed handshake ka bacdi waxaa la keenay waxaa yidhahda BBI oo ah in dastuurka siyaasad lagu bedelo oo systemkii dowladnimada nooca ay siyaasadda u bedelaysa in lagu shaqeeyo shirka galmudug loo fadhiyo waxaa waaye iftiinka soomaaliya ay sugayso